السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد أتم جرافيكس سيدا اسكوغين maanta waxaan oo bilaabanay kooraskii video editing ka ahay oo lagu baranayo Adobe Premiere Pro. Waxaan isku dayi doonaa inaan u sharaxo qaab qof walba uu fahmi karo, gaar ahaan ardayda beginner-ka ah oo hadda bilowga ah. Cashirkeena maanta ugu horeeya waxaa isla arki doonaa qaabka loola soo dego Adobe Premiere Pro iyo waliba qaabkii computer-kaaga uu shuban lahayd. Waxaa soo furi doontaa browser walba oo kugu jiro computer-kaaga. Waxaa searching garan doontaa Get into PC website-kaas. linki ugu horeeyo aad ku dhufanaysaa website-ka markuu soo baxo qaybtan midigtaada waxaa ka arkaysaa qayb searching bar kaas waxaa ku qoraysaa Premiere Pro and then waxaa raacsiinaysaa version ala version-ka doonto. Hadda anaga waxaa soo degsan doonaa 2020-ka. version-ku ka dambeeyo uu ka cabir weyn yahay ama uu ka size weyn yahay. Markii saan noogu soo baxo gudaha u galeynaa waxay inta markaas la fiirino setup size-kan waa 1.6 GB. kadib markaa hoos soo degno adi meeshaan imaanaysaa download 64 bit ku dhufanay. markaa ku dhufatid waxay ku xiran tahay speedka uu leeyahay internetkaaga wuu ku soo degi doonaa. markuu ku soo dego and then anaga wuu noo soo degsan yahay already. waxay imaanaynaa qaybta downloadska waa ka move gareyn waxaa dhignay qaybteena oo desktopka waa kana desktopka yaala asoo WinRAR ah. right click dhihi doonaa extract files and then okay dheh. markuu WinRAR ka baxo asoo folder caadi noqonaa folder gudaha u gal qaybtan hoose u jeedi setup-ka double click ra soo kici and then continue sida automatic asaa kugu soo degi doono. ugu dambeyntii markuu noogu soo dego computer-keen install ku dhahno kaloosa iska dhaheena waa kana barxadan noo yaala qaybta desktop-ka right click dhah waxaa dhahdaa pin to taskbar si hoostan oo pin noogu noqdo and then waa soo kicineena. ugu dambeyn waa u jeedaa computer-keena si successfully u install gareynay. cashirkeen maanta halkaan ku eeg yahay. waa mahadsantiin dhamaantiina. waxaan noo balanaa muuqaalka xigo.